السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وناكسن داوديال meel kasta dunida nagala socotaan waa habeenimo Arbaca bisha January ay sii galayso sanada 2022 qodobada aad barnaamijkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah dagaaladii ka socday waqooyiga dalka Itoobiya oo sii xoogaysanaya iyo kooxda TPLF oo meel cusub gashay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cagdar oo ballan qaaday inuu tayeyn doono ciidamada xoogga gaarka ah ee liyu booliska iyo warar dheeraad ah oo naga soo gaaraya dawladda deegaanka Soomaalida dalkaasi Itoobiya iyo shirkii ka socday xerada Afisioni oo ay ku soo biireen midowga musharaxiinta iyo qodobo xasaasi ah oo halkaasi lagu soo wada qaaday qodobadaas iyo qodobo kale faahfaahsan ee barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada barnaamijka waxa igu weheliya saaxiibkay Maxamed Wacane oo indhaha ku hayay xaaladihii ugu dambeeyay ee guud ahaanba Geeska Afrika Wacane soo dhawow maxaa ugu dambeeyay haddii aan ku hormaro dagaaladii ka socday dalkaasi Itoobiya oo la sheegayo inay sii xoogaysteen kooxda TPLF ay guulo sheeganayso aad baad mahadsan tahay waxaa jirto abaabul weyn oo ay wadeen xooga TPLF maalmihii ugu dambeysayba tan iyo intii ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed uu ka laabtay furmaha hore ee dagaalka waxaad moodaa in xooga TPLF ay dib u soo laba kacleeyeen dadka deegaanka Axmaarada ku sugan ayaa waxay iyaguna wadaan abaabul xoogan oo ka dhan xooga TPLF waxaana tababaro kala duwan ay ka kala socdaan dhamaanba dhulka Axmaarada kuwaasi oo la rabo in lagu tayeeyo ciidamada gaarka ee Axmaarada waxaana xooga TPLF ay ku soo siqayaan gobolka Axmaarada tan iyo intii ay dawladdu ku dhawaaqday in ay bilaabi doonto wada hadal lala gali doono xoogaga TPLF iyo sidoo kale ururada mucaaradka waxaana socdo dadaalo waaweyn oo ay wada dawladdu sidoo kale dawladdu waxay wadaa duqeymo ka dhana xooga TPLF iyo sidoo kale qoomiyadda Tigray dagaalla ka socday maanta waqooyiga dalkaas Itoobiya gaar ahaan galbeedka shishe ee xuduudka Suudaan iyo dalka Itoobiya dagaalada halkaas ka socday maxaa ka cusub sidoo kale dagaaladani waxay wadeen xooga TPLF waxayna rabaan inay ku furaan ama isku furaan xuduuda dalka Itoobiya ay la wadaagaan Suudaan halkaasina waxaa ka soo socota fursad aad muhiim u ah hadii ay xuduudaasi ay furaan xooga TPLF ayaa dadka arrimaha siyaasadda TPLF aad u indhaynayay waxay sheegayaan in ciidamo aad u tiro badan oo tababar ahaan ama tababar uga socdeen dhankaas iyo dalka Suudaan ay ku go'doonsan yihiin dhinaca dalka Suudaan waxaana la sheegayaa in hadii ay xooga TPLF ay isku furaan labadan xuduud ay u tahay horumar aad u weyn laakiin dawladdu waxay wadaa duqeymo ka dhanaa xooga TPLF waxaana la rabaa in awoodooda lagu weeqo sifa aysan xuduudaasi aysan marnaba aan u furmin sidoo kale erawareede ayaa sheegaya in xooga TPLF in ay rabaan inay furaan xuduudaasi kadibna ciidamada ama saraakiisha ugu sarsareeyo ama horjoogayaasha kooxda TPLF ay rabaan inay iskaga tilaabaan xuduudaasi laakiin si kastaba haatee waxaad moodaa in hadii xooga TPLF ay qabsadaan xuduudaasi ay tahay horumar aad u weyn oo dhinac kastaba waan gartay dhinaca gobolka Axmaarada xuduudka uu leeyahay gobolka Tigrayga magaalooyin ku yaala waxa soo galay baa leeyahay kooxda TPLF guuleena ka sheegteen maxaa ka jira hadalladaas ay sheegeen kooxda TPLF dawladdu maalmihii ugu dambeysayba waxay aad u dhaleeceysay falal argagixiso sida ay dawladdu ay sheegtay oo ka dhacay magaalada Gondar agaarkeeda iyo sidoo kale deegaamaha halkaas hoos yimaado waxaana la sheegay in xooga TPLF ay ka geysanayeen falal ku dhufo ka dhaqaaqa laakiin xooga TPLF waxay sheegteen inay qabsadeen deegaamo muhiim ah magaalooyinna ay qabsadeen aysan jirin xasuuq loo geystay dadka shacabka laakiin ay gumaadeen ciidamo aad u tiro badan oo ka tirsan xooga Axmaarada iyo sidoo kale kuwan ciidamada isku dhafantay halkaas ku sugan hasa haatee TPLF maalmihii ugu dambeysayba dadaalkoodu ma yaro falalka ay wadaan ay rabaan inay ku qabsadaan ama isku dayada ay sameynayaan wax yar ma aha waana kuwii horaantii qabsashadii magaalooyinkan Dizay iyo sidoo kale Kombolja iyo xilliga ay qabsanayeen qaabka ay ku soo galeen ayaad moodaa haddana inay ku soo laabteen xooga TPLF laakiin dawladdu ayadana aad ayay u fiirsanaysaa dhibaatada ka soo foolay halkaas xooga TPLF waxay soo bandhigeen iyagoo la soo baxaya hub ku asnaa sida ay sheegeen
xeryo ku yaala gobolka Tigrayga ma la isdhihi karaa hubkaasi ayaa dagaalka soo laba kacleeyay isla markaana xoog badan ku biiriyay kooxda TPLF-ta horta TPLF hubab kala duwan ayay la soo baxeen sida ay sheegeen hataa saraakiil u hadashay ciidamada federaalka ee dalka Ethiopia oo sheegay in TPLF waxa ay wadaan ama hubka ay la soo baxayaan uu yahay hub aan horaan loogu arag dagaaladii ka socday waqooyiga iyo dhamaanba dhulka Axmaarada xoogan TPLF hubkan ay la soo baxeen dagaalka wax weyn ayuu ka bedeli karaa waana arintan hadda keentay in TPLF ay u jihaysato dhinacaas iyo galbeedka wadanka ay la wadaagaan xuduuda Sudan iyo tan Ethiopia marka TPLF xooga yani dhaqdhaqaaqyada iyo xoogan ay la soo baxeen iyo arartan ay la soo baxeen waa hubkan ay la soo baxeen ee u dugnaa iyo sidoo kale يعني wadamo badan oo hadda waxa jiro TPLF lagu xanto inay taageeraan haday noqoto qaab dhaqaale iyo haday noqoto sidoo kale qaab military marka TPLF لازم wax ay heshay ayaa jiro waana arinta keentay inay hadda dhaqdhaqaaqyo cusub ay ka bilowdo dhulka Axmaarada iyo xuduuda dalka Sudan iyo Ethiopia waan gartay waxaan aad baad u maasan tahay hadii aan dhinaca dawladda deegaanka Soomaalida madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida oo ka hadlay xaflad loo qabtay ciidamada gaarka ah ee Liu booliska isla markaana dalacsiin lagu sameeyay ayaa arrimo dhowr ah ka hadlay waxyaabaha uu ka hadlay madaxweynuhu waxa la sheegay inay kamid ahaayeen in la tayanayo ciidamada xoogga gaarka ee Liu booliska maxaa kale oo ku soo daray ciidamada madaxweynuhu maxaase laga ogyahay oo ciidamada haatan dib u habeyn lagu sameeyay ama tayadooda lagu daray horta saad ogtayba waxaa jirtay ciidamada Liuga in loo diray dhinaca iyo dagaalada ka socday waqooyiga dalka Ethiopia sidoo kale ciidamadu waxay difaac kaga jireen gobolka Canfarta iyo kan deegaanka Soomaalida ayagana dagaalo ay ka socdeen sidoo kale ciidamadu waxay heegan u ahaayeen meel kasta oo dhibaato ay ka dhacdo dawladdeegaanka Soomaalida haday noqoto dagaal iyo haday noqoto dhibaato kale oo si ama qabiilad isku dhacay ama qaab kastaba marka ciidamadu waxay muteysteen sanadii 2021 hadda naga tagtay waxay qabteen waxyaabo aad u badan waxay qabteen in yani ciidamadii loo diray dhinacaas waqooyiga dalka Ethiopia waxay ka keeneen horumar aad u weyn markii loo eego ciidamadii kale dawladdeegaanada ka tagay dawladdeegaanku wuxuu sameeyay horumar aad u weyn wuxuuna qabtay inta badan ciidamada markaan ka hadalno hadda saraakiisha ugu sarsareyso dagaaladii ka dhacay magaalada Garbaciise iyo sidoo kale magaalooyinka Candhuufto iyo Ataytu dagaaladii ka socday nimanka Canfarta ay weerarka ku soo qaadeen dadka reer guriga halkaas ku dhaqan wakii ay casharada aadka u baahan ay halkaasi ugu dhigeen ayna qabsadeen magaalooyinka dhamaanba ay ku faaniyeen ciidamada Canfarta marka isku soo dudub ciidamadu waxay qabteen horumar aad u baahsan waana mid hadda ay muteysteen ee keentay in maalin walba la dalacsiiyo loona sameeyo xaflad lagu dalacsiinayo dhamaanba saraakiisha ugu sarsareyso iyo sidoo kale abaalmarino la kala siinayo saraakiisha halkaasi ama dagaaladaasi ka qayb qaadata waan gartay warar kale oo naga soo gaaraya deegaanka ayaa jira maxaa kamid ah wararkan kale waxay sheegayaan in yani deegaanku ay ka jirto musiibo aad u baan oo roob la'aan ay ka koobtahay waxaana jirto meelaha qaar laga soo sheegaya in ay dhibaato biyo la'aaneed ay ka taagan tahay dawladda deegaanka Soomaalida waxaan aad uga codsanaynaa ama dhamaanba dadka ganacsatada iyo dadka ku dhaqan dawladdeegaanka Soomaalida in ay ka qayb qaataan dhibaatada deegaankaasi ka taagan ayna gacan u fadiyaan walaaladooda ku ooman meelaha ay ka mid yihiin ama gobolada deegaanka dhamaan deegaanka Soomaalida waan gartay dhanka Soomaaliya magaalada Muqdisho waxaa shir uga socday madaxda ugu sareysa ee dalka iyo waliba maamul goboleedada madaxdooda dhamaantood shirkaasi socday maxaa wara oo ka soo baxaya maalintii labaad maxaase qodobo lagu soo qaatay isaad ogtayba waxa socday shir galay maalintiisii labaad kaasi oo lagu arinsanayay xaaladaha dalka ka taagan wadaweyd madaxweynaha iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha waxa ka dhaxaysay xogow xurguf oo ka dhalatay siyaasadii ama doorashadii lagu madlanaa inay bilahan la soo afmeero shirkani maanta waxa lagu cazumay ama ka soo qayb galay galabta midowga musharaxiinta halkaasi
ahaana in qodobadii la isku mari la'aa qodob ka mid ahaa midowga musharaxiinta hadda waxay ku sugan yihiin Afisiyoni waxayna ka qayb galeen si rasmi ah shirka ka socdo Afisiyoni kaasi oo uu hogaaminayo ama uu horkacayo ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya wana haddana waxaa la leeyahay maxaa sababay ama dadku waxay isweydiinayaan maxaa sababay madaxweynaha maxaa kaligiis ka reebay shirkani oo ay beesha caalamka intooda badan ay ugu baaqeen in uu ka qayb galo shirka ka socdo Afisiyoni waxaana sidoo kale la filayaa in madaxweynaha uu soo gunaanado shirka ka socdo Afisiyoni waana arin hadda la sugayo in madaxweynuhu uu ka soo qayb gali doono waan ayaana socoto sidii uga soo qayb gali lahaa shirkani dhamaadkiisa waan gartay aad iyo aad baad umahadsan tahay saaxiibayaalkaas wuxuu ahaa maxamed wacane oo igala qayb qaadanayay wararkii ugu dambeeyay naga soo gaadhayay gobolka geeska Afrika inta ku kulmayna warkan war ka xiga waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo amaana Allah